ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed caawa hadii jilib loo baahdo uu tagi karaa inaan aaminno bis aaminaadaas aan aaminna ugu filan raganimadana wax ka dhiman hadaan nimankaas wadan ka saarin wallahi raganimadana wax ka dhimantay hooyada Soomaaliyeed ee suuqa saaga adeeg u soo doonatay ma dambiga ka gashay al-shabaab adintaas dhaawac meel dhulkaygo dhiigayga waan u weynayaa dhulkaygo dhiigayga ciidale dhaxalkeena ummadale dhalashadeena Soomaali Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan kadib maanta waa ku faraxsanahay inaan idin soo booqdo idin soo salaamo markuu ugu horeyso waxa mahad iska Allah subhanahu wa ta'ala meeshaan ugu kulmiyay caafimaad nasiyay noo kasay inaan noqono ama nugu hanuuniyay inaan noqono dad doortay inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan duruuf kasto lagu jiro waxa la soo ma ahan ragga iyo duruufta ilmaadeero waay waxaan maanta ku faraxsanahay in nimankii al-qaacidada al-shabaab ahay ay idin bawac dhigi laayihiin ay leeyihiin wiilasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel lagu hor istaagi karo malaha niman kale walaalihiina ayagana meesha idinka 90 kilomitir soo marteen 250 kilomitir mareen oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan 2 3 sideedaba sida saxan waxay ahayd in al-shabaab asagu naga cabsado sida ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay naga rabaan waxay tahay inaan annaga noqono dadka cabsi geli argagixisay annaga noqono sida saxan sidaan waa sidana laga rabay waa u dhaaranay inaan u dhimanayno dalkan Soomaan dhalinyarada Soomaaliyeed intaan bismiya dhalinyarada Soomaaliyeed inta xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan bismiya waa ma Soomaan dhalinyaro badan fursad u heli waayay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid noqdaan waa ogtihiin oo marqaatiya ka tihiin maalin kasta markii ciidan la qoraayo meeshii 500 looga baahan yahay horta 5,000 soo feesho maanta fursadan haysano ee ah inaan dalkeena iyo dadkeena difaacno waxa la rabaa inaan ummadeena uga faa'iideyno in nimankan argagixisada ah aan ka dulqaadno wax fiican oo la sheegi kara ma ahan in maanta aan dhahayno al-shabaab uu 20 jirsade wax fiican maan Soomaan waxaana laga rabaa inaanan sii dhihin al-shabaab uu 20 jirsade inaan sii dhihin laga rabaa haddaan dhahnana ugu yaraan inaanan sii dhihin al-shabaab 22 sano tirsan inaan dhihin laga rabaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waana guuleynaa